especially markaas oo Zakaria Browning banaanka markuu soo dhigayo iyo qaabka ugu qabtay cagtiyo kor aheyd jihada geeska uu markaas oo ku tuuray marka talent inuu ka muuqdo Malaysia Joshua Abdul sidoo kalena gaamurnimo dhanka dhalinta goosha inay ka muuqato muuqaalkani waxaad ku soo dhawaataan tabinta ciyaarta weyn ee u dhaxaysa kooxaha Caawiya Maalin Horseed iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Dekedaha kulankan ayaa ka tirsan wareegga sideedamaadka koobka faca weyn ee General Daawud sanadkan 2023 Ayman Maxamed Xuseen Axmed Cabdullaahi Cabdi Panu saddexaadin doona garsoore Axmed Xasan Xuseen kubadda waxa uu la ciyaaray Maxamuud Maxamed Cali Hariidka Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Hidig ayaa cadaadis badan ku sameeyay ciyaaryahanka garabka midig ee difaaca kooxda Dekedaha galabta ciyaartan Shakuwa Zakaria Maadsine garabka loo soo dhigay markan laacibka lagu magacaabo Warsiid Ali Shakunda waxa qabsaday golayaha kooxda kubadda cagta Horseed wiilasha kooxda Horseed ayaa kubadda haystaan markan kubadii la soo ciyaaray dhaxda ay ku burburiyeen barbaarta kooxda Caawiya Maalin Farxaan Maxamed Axmed waxa uu la ciyaaray difaaca dhexe kooxda Horseed Dekedaha Abaas Amiin Maxamuud Maxamed Cali Hariidka ayaa kubadda u taagan markan Hariidka Shakuwa Zakaria ayuu kubadda la ciyaaray Shakuwa Zakaria garabka ayaa loo soo dhigay markan laacibka lagu magacaabo Azagwa Shakuwa ayuu la ciyaaray cross ayuu sameeyay markan difaaca garabka midig ee kooxda Dekedaha hase yeeshee ugu dambeyn wiilasha kooxda Horseed kubaddana way soo daafaceen Shakuwa Zakaria difaaci hore ee kooxda Helman ayaana kubaddani gacan tuurka u sameyn doona kooxda dib ayuu hagaagtay xaaladda goolayaha kooxda kubadda cagta Dekedaha Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac Shakuwa Zakaria Kembe Saadiq difaaca bidix ee kooxda kubadda cagta Horseed Maalin waxay sameynaysaa akhrin Farxaan Hidig kubadda waa laga soo qaaday Farxaan si qurux badan ayuu kooxda Dekedaha ayaa isku dhaceen waxaad caafimaadka ayaana dabiibaysa xidiga ka dhaawacan kooxda kubadda cagta Dekedaha Maxamuud على صاع يارا كوبادة مركن عقد هورسيد سكين بي صادق دفاعي سدح قلبت محمود محمد علي هريتكا قرب كالا صوريق مركن ويليشا كوحدة كوبادة عقد هورسيد فرحان محمد عبدي ولميو كوبادة مركن لاعب كلو مقعب عثمان وكاجا شاكوها زكريا ايمن هذا عزيز عطوش يا كوبادة هستا عطوش كوبادي هوري حاجي معلم هذا شاكوها زكريا كوبادو على صايرة كوبادة مركن شاكوها زكريا أزاقوا شاكوها زكريا كوبادة waxaa ka soo saaray Sakan Bezadiq difaaca bidix ee kooxda kubadda شاكوها زكريا difaaca garabka midig ee kooxda kubadda cagta Dekedaha
Shakwa Zakaria difaaca garabka midig ee kooxda kubadda cagta Dekedda. Shakwa Zakaria Shakwa Zakaria dabiiqadii qaybtii koobaad Cabdicasiis Maxamed Catoosh kaafishiine xidigaha kooxda kubadda cagta ee Dekedda ayaana qaladkaas loo dhigay. cross ayaa la sameeyey maxamuud maxamed cali hariidka kubadda waxa uu la soo ciyaaray Shakwa Zakaria Abaas Amiin kubadda waxaa la soo gaarsiiyey Cusmaan Salaad Cabdi Cusmaan Okaaja. Shakwa Zakaria Ayman ayaana kubadda u taagan markan waa uu soo tuuray laacibka lagu magacaabo Ayman Cabdicasiis. Shakwa Zakaria faul ayuu dhigay garsoore Axmed Kaafishiine xidigaha kooxda Dekedda ayaana qalad garabka la soo dhigo kubadda markan Azogwa xidiga lambarka 17aad ee kooxda kubadda cagta waxaa jira taageerayaal badan. Joshua uu soo tuuray madax super Joshua Abdulokooyo ayaa soo tuuray kubad geeska laaba waxaana ugu dambeyn kubaddani madaxeeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo maxamuud maxamed cali hariidka difaaca dhexe ee kooxda Dekedda. haddii Cabdicasiis Cadaasi jaaqaldan ayuu dhigay golayaha koowaad ee kooxda Caawiya Maalin Axmed Mayo Shariif Emeryon ayaa kubadda heesta markan Emeryon Cabdifitaax Ibraahim Deeqow wiilasha kooxda Dekedda ayaa mar kale kubadda la wareegeen. waa kan ciyaaryahankooda laacibka lagu magacaabo Emeryon Jidibere Elija ayaa u soo boos qaateen golaya Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamac. Asago xerada ganaax ayuu ku jira Anwar wuu dhiibay Anwar banaanka la soo dhigay oo Joshua Abdulokooyo super goal. Joshua Abdulokooyo ayaa ciyaarta ka dhigay 2 gool. haddii Cabdicasiis Catoosh oo hore ugu soo ciyaaro kooxda Dekedda goolkii uu ka dhaliyo uusan ku dabaaldegin Joshua Abdulokooyo kooxdiisii hore horseed waa uu ku dabaaldegay markan. Anwar Shakunda ayaa kubadda si qurux badan u baadigoobay Pano ayaa ku dhacday Emeryon ayaa cross sameeyey balse si qurux badan waxaa kubaddan u dhammaystiray almuhandis Joshua Abdulokooyo. si barayse waa labada xidig ee ciyaarta bedel uu ku keenay. Shakwa Zakaria garabka midig ee difaaca kooxda Dekedda Emeryon Jidibere Elija gudaha ayuu qaatay Joshua banaanka ayuu soo dhigay Emeryon inkastoo Emeryon banaanka uu soo dhigay haddana Anwar ayaa isku sii dayay. waxayeed kubad halisa waxayeed kubad cajiiba fursadii soo martay ciyaaryahanka lagu magacaabo Anwar Siid Cali Shakunda. Joshua ayaa darbeeyey Emeryon ayaa ku riday waxaana sii taabtay laacibka lagu magacaabo Anwar Siid Cali Shakunda. tani waxayeed fursadii soo martay kooxda Dekedda guud ahaan waa halkaas ku soo gabagabeynayna tabintii tooskeeda ka imaanaysa Stan Sports tabiyihii galabtoo idin leh.
badan ahayd Anwar isku daya inuu banaanka soo dhigo suurtagal waana Zakaria toos ugu soo dhigay qof ku fikiri kara male qaabkaas adag inuu Bruni ninkaas ku tuuri karo oo talentigaasna oo ku jiri macnaha especially markaas oo Zakaria Bruni banaanka markuu soo dhigayo iyo qaabka ugu qabtay cagtiyo kor ahayd jihada geeska uu markaas oo ku tuuray marka talent inuu ka muuqdo amaleysa Joshua Abdul sidoo kalena gaamurnimo oo dhanka dhalinta goosh inay ka muuqato amaleysa oo